roobku markuu soo da'o ee webiyadu dareeraan 5 bilyan oo tan oo kimikala bay badda geliyaan oo nooluhu u baahan yahay hadduu dhulku abaarsado baddana waa abaarsanaysaa roobkaasi hadduu di'i waayo ilaahay muxuu yidhi wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun cirkaasay jirtaa baa ilaahay yidhi arsaaqdiinna iyo waxa laydin yabohay dhammaantiin roob hadduu di'i waayo kalluunkuna wuu dhammaanayaa badda waxa ku jiraana waa dhammaanayaan waayo mineralskay dhulka ka helayeen oo dhan heli maayaan bale oxygen ku filan heli maayaan waayo roobka badda hela waxyaabaha uu badda geliya waxaa ka mid ah oxygenka saa daraaddeed kalluunka laftiisaa abaarsanaya hadduu roob heli waayo noloshan sidan u dhisan ee ilaahay subxaana wa tacaala saatan u sameeyey biyuhu khasaa'ista ay leeyihiin noolaha kaloo dhamme ma leh kimikaliska kaloo dhamme ma leh walidaalik biyuhu markay 4 degree gaadhaan baa densitigoodu ugu culus yihi hadday ka hoos maraan waa maxay wuu fududaadaa waa sababta ilaahay ugu talagalay in badda waxa ku noolaaday ay ku nool yihiin wailaa hadday 0 degree markay sii gaadhaba hadduu densitigu sii cuslaanayo barafku hoostuu mari lahaa iminka barafku dushuu sabeeya hoostana biyaha sabeeya haddii biyuhu ay la mid noqon lahayn materialka kale markay sii qaboobaanba densitigu culayskuu sii badan lahaa oo biyuhu ay barafku hoosta maro noolaho dhamma waa dhiman lahaa ilaahay markuu uu kala bedelay baddaa waa la dhanaaniyey lowlaa aanay dhanaan ahayn dunida qudhumuun baa loogu dhiman lahaa milixdaa ay tahay ee leedahay ayaa badda waxa ku baktiyey iyo waxaynu ku gurayno iyo waxoo dhan urtooda bedeli lahaa wa ilaa dunidoo dhamme ur bay u dhiman lahayd hadday biyaha baddu macaan yihiin waxaynu isleenahay hadday baddu inoo macaanaato mala biyaad ka dhergi lahayd baad isleedahay maad noolaateen yacni noloshan sida ilaahay u dhiga ay u taallo hadday bad tahay iyo hadday barri tahay hadday xayawaan tahay hadday miqdaarka biyo ee cirka ka soo da'aya tahay hadday temperature tahay hadday يعني dhulku waxay dhahdaan ilaa 100 degree buu temperaturekiisu kala sareeyaa marka loo eego equatorialkiisa iyo maxay iyo north polekiisa haddaanay sidaa ahaan lahayn bay leeyihiin nolosha ma jirteen wax kastoo innaga aynu isleenahay malaa sida kale ku fiicnaan lahaa scientifically waxay leeyihiin hadday sida kale ahaan lahayd noloshu ma jirteen taa macnaheedu ayuha alikhwa waxa weeyaan dunida tan aynu ku noolahay وهالكا ونك الساينسيهان كي كليهي وتايلر ميد فور مان بودي وبهاللو دواريي بني ادم كلو دواريي والا انت نودم اني صدفه ku dhacdo ko chance ay ku dhacdo waa waxaan suurtagal ahayn waanaynu shalay soo tilmaamnay waxa laaliye waxay sheegayeen ko chance ko dhameynaan waxba ka jirin wala badaliil waxa aan sheegay mid waa qadiyatu taskhiir ama mabda anthropic oo bini aadamka noloshiisa in waxaan loogu talagalay in kownkan cid musammima oo si takhtiitiso ku talagashay noloshaasi inay ka jiri karto ay jirtaa kalabaadna waxa weeyaan inuu fine tuned yahay meel kasta halkay saarantahay haddii in yar dhan looga dhaqaajiyo plus or minus dhanku u dhaqaaqaba inaan noloshu jiraynin daliilka saddexaad aan tilmaamayno daliil kastaba saacad u qaadan lahaa haddii la sharxayo waa daliilu liijaad aw alxuduuth waa daliilkay falaasafadii horena daliishan jirtay iftiinka cadceedda ilaahay subxaana wa tacaala enerjigu inaga siiyaa noolahoo dhammi ku noolyihi waayo haddaan enerjigeeda la haynin dunida wax chemical reaction oo ka dhici lahaaba ma jiro caleenta yare geedka ku taalla waa warshadda ugu weyn dunida ku dul taalla uguna qayliya buuq yar soo moogada caleentu inay tahay waxa noolaha dunida kor saaran oo dhan quudiya waxa noolaha kor saaran dunida oo dhan geedka iyo xoolaha iyo wax oo dhan caleen baa soo saarta waxay cunayaan caleentu geedkay soo saartaa wuxuu cunayo geedkana xoolo iyo wax nool oo dhan baa daaqa waxaan noolna waa isa sii cunaan waxa laaliya waxa kownkan aynu saaranay saaran maanta dhulkaynu saaranay saaran warshada kaliya soo saarta waa caleenta yar iyana photosynthesis yar oo cadceedda inooga qabato ayay farsamado dhan ku samaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ifkaasuu cirka ka keenay inta gamma rays iyo waxa rays violet caafimaadka waxyeelo oo dhan atmospheric laynaga celiyay spectrumka atmospheriska lightka soo dhaafa intuu yahay waa inta nolosha ay u baahantay 7 colorskan iyo inta yare ku xigxigta hatta badda markuu ku dhaco iftiinkaas
مثلا casaanku spectrumkan badda markay biyaha nalku ku dhaco casaanku 18 mitir buu ku dhammaadaa that means 20 mitir haddaad badda quusto nabar kugu dhaco dhiiggaaga arki maysid waayo wax casaan la yidhahdaba kama jiraan yalowgu markaad 100 mitir gaadhaa buu dhammaanayaa greenki iyo buluugu waxay dhammaadaan maxay 240 mitir waayo iyagu waa kuwa photosynthesiska sida si dhirta baddu ay u baxdo noolaha badda ku jira si uu geedkiisu u bixi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala nalalka kaloo dhan meesha sokaa lagu reebay laakiin greenka iyo buluuga photosynthesiska waxay ka kariyaan dhirtu cunnada ka sameeyaana ilaahay wuu sii daayey ilaahay ay ka gaadhaysa 240 mitir roobkaa cirka ka soo da'aya biyaha ilaahay wuxuu ka dhigay dissolvable wax kastaaba ku milmi karaan inta ugu badan mineralsku waxay ku milmaan waa biyaha